daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeele ku fur wararkii ugu dambeeyay ciidamada al-shabaab oo weeraray gudaha dalka Kenya saldhig ku yaala isla markaasina saraakiil halkaasi ku dhaawacay qaarna ay ka badbaadeen isla markiina ay halkaas ku dileen rag shabaab ah oo ciidamada Kenya u xirnay wararkii ugu dambeeyay faahfaahino waxaa kaloo haynaa xasan sheekh maxamuud oo si baan u weeraray dawladda farmaajo iyo xasan cali khayre isla markaasina tuhun weyn halkaasi ku furay hase ahaatee qodobka ugu horeeya faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya weeraro qorshaysan oo ay dagaalyahanada al-shabaab ay ku qaadeen gudaha dalka Kenya gaar ahaan magaalada Wajeer meel u dhow al-shabaab oo xalay ku qaaday qaybo ka mid ah magaalada Wajeer gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya weerarka oo ahaa mid xooggan ayaa al-shabaab waxa ay beegsadeen saldhig boolis oo ku yaala deegaanka dadajabula oo koonfurta xiga Wajeer waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo loo adeegsaday ciidamada booliiska ee ku sugnaa saldhigaas isla markaasina gabi ahaan la gubay shabaab oo ku faantay isla markiiba in ay gubeen qaar ka tirsan ciidamada booliiska Kenya isla markaasina ay aad u soo gumaadeen sida ay sheegeen sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka Kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab ay dab qabad siisay saldhigii oo guud ahaan burburay isla markaasina laba nin oo shabaab ahaan loo hayay halkaasi ay gubteen sidoo kale wuxuu xaqiijiyay in sarkaalkan ragga fuliyay weerarka ay dileen laba qof oo ku eedeysan inay xiriir la lahaayeen shabaab kuwaas oo ku xirnaa saldhigga deegaanka dadajabula oo ah meesha uu weerarka ka dhacay isla markaasina xasuuq ba'an oo halkaasi ka dhacay wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in weerarkaasi lagu dhaawacay 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dalka Kenya isla markaasina si dirqi halkaas loogu bixiyay sida ay warbaahinta qaar sheegeen saraakiishan dhaawaca ee joogay ee saldhigaasi ayaa waxa la leeyahay ayagoo dhaawacaya halkaas laga badbaadiyay sida ay xogta ku helnay al-shabaab ayaa doonaysay inay xoog ku soo furato isla markaana ay soo badbaadiso xubno uga xirnaa saldhiga balse ay ugu dambeyntii dabkii ay ku dileen ama ay ku gubteen xaruntaasi ciidamada Kenya lagu qabadsiiyay hase ahaatee raggii ay doonayeen al-shabaab inay soo furtaan gabi ahaanba halkaasi ayay ku basbeeleen dhinaca kale shabaab oo ku faantay in halkaasi gudaha Kenya ay ku soo xasuuqeen saraakiil ayaa isla markiiba sheegatay weerarkaasi al-shabaab oo sheegatay inay ka dambeysay weerarkaani ayaa weli shaacin khasaaraha balse waxay sheegtay inuu jiro khasaare xoog leh oo soo gaaray ciidamadii halkaasi ka dhawaa ama halkaas ku sugnaa isla markaasina ay aad u gumaadeen sida ay website-kooda ku soo qoreen dhinaca kale xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo weerar culus ku qaaday madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud oo la hadlay ama ka hadlay shir madaxda xisbiyada ugu socday muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday dawladda gaar ahaan ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dawladda ay ka gaabisay gurmadkii dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysnaa maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed kuwaas oo ay sameeyeen fatahaadii ugu badnaa abid halkaasina ay boqolaal Soomaaliya ku barakaceen halka ay in ka badan 28 qofood ay ku dhinteen sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in aan la isqabadsiin karin malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin dawladda ay ku dhisto taalooyinka haddana aysan dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan u heli karin gurmad degdeg ah taasi meel ay adduunka ka jirto ma jirto haddaba in dhoobadii la soo celiyo dadkii hore la soo celiyo malaayiin dollar lagu bixiyo Soomaalida iminka noolna aan lacag loo helin oo la dhahayo halo gurmado taasi mid isqabanaysa ma lahan madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in tallaabo aan laga filaynin ay ahayd in dawladda ay ku dhawaaqdo qaaraan hala keeno si loogu badbaadiyo dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne oo ka mid ahaa meelihii uu sida daran u saameeyay webiga Shabeelle hase ahaatee dadkii qaarkood meydkoodii ilaa iminka la raadinayo hase ahaatee taasi dawladda laga aqbali maayo ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya xasan sheekh maxamuud dawladdu malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin taalooyin ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa dadka reer Beledweyne ee biyaha dhex jiifa qaarkood ku dhibaataysan dawladda lacag uma heli karto ee qaaraan hala keeno in la isqaadsiyo ayaa loo baahan yahay ama la isqabadsiyo ayaa loo baahan yahay ayuu yiri madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud hase ahaatee madaxweynaha waxa uu si la yaab leh ugu tilmaamay in malaayiin dollar si tartiiba lagu soo helo lagu dhiso taalooyin ummadii Soomaaliyeed iminka biyaha dhex jiifana la leeyahay qaaraan ha loo soo aruuriyo taasi wax aqbali kara ma lahan ayuu leeyahay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli jawaab rasmi ah dawladda aysan ka bixin
dhibaatadii bini'aadanimo ee ka taagan beledweyne marka laga reebo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan dowladaha gurmadka qaarkood kuwaas oo loogu gurmadayo dadkii ku dhibaatoobay halkaasi isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aad iyo aad loogu xumaynayaa in aysan weli wax dhab ah arrintaasi aysan ka qabanin dhinaca kale xukun adag oo lagu riday gudoomiyihii degmada oo xiriir la lahaa al-shabaab isla markaasina qaar lagu riday xukun dil ah qaarna lagu riday xabsi daa'in hadda ahaatee tani waxay tooshka ku ifinaysaa dadka iminka xukuumadda la shaqeeya ama meel kasta tuulo kasta gudoomiye ka ah ayay tan jawaab cad u tahay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa xukun isugu jira dil toogasho iyo xabsi daa'in ku riday dad loo haystay inay ka dambeeyeen qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii amniga ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo lagu eedeeyay inuu wax ka maleegay qaraxii lagu dilay ku-xigeenkiisii amniga iyo sidoo kale oo la shaqeyn jiray al-shabaab ayaa lagu riday xukun xabsi daa'in ah maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale xukun dil ah ku riday Cali Axmed Nuur Khayane oo maqane ah laguna eedeeyay inuu ka tirsan yahay al-shabaab iyo Nuur Ibrahim Mahad Alle labada nin ayaa lagu eedeeyay inay wax ka maleegeen qaraxii ka dhacay Maxaas isla markaasina lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii amniga degmadaasi Maxaas dacwadan oo ay qaaday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ka duwan kuwii hore waxaana dacwadda ku lug yeeshay gudoomiye degmo oo lagu helay in al-shabaab uu xiriir lahaa laguna riday xukun madaxa ha ku furto ah hase yeeshee gudoomiyahaas ayaa waxaa la leeyahay xabsi daa'in ayaa lagu riday qaarkii kalena waxaa lagu riday xukun dil ah hase yeeshee arrintani waxay u iftiiminaysaa dadka iminka talada haya ee ku tagrifalaya ama xiriir la leh al-shabaab dhinaca kale dowladda Turkiga oo noqotay dalkii ugu horeeyay oo ka soo jawaaba baaqi madaxweyne Farmaajo ee ahaa waadiyada ama biyaha dadka Soomaaliyeed harqiyeen dowladda Turkiga walaalaha nahay ayaa noqotay dowladii ugu horeysay ee ka soo jawaabta baaqi madaxweyne Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo gurmadka degdega ah ka sameeyay iyo gurmad degdeg ah ugu baaqay dowladaha caalamka ah iyo ummadda Soomaaliyeed fatahaadaha xoog leh ee ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa waxa uu ka dalbaday beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed in gurmad lala soo gaaro wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa qoraal ka soo baxay waxa ay ugu hadashay saameynta ka dhalatay fatahaada webiga Shabeelle iyo Jubbada kuwaas oo ka barakaceen dad badan oo Soomaaliyeed isla markaasina qarba ay naftooda ku waayeen warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa lagu eedeeyay ayaa lagu sheegay in ugu horeyn ay ka tacsiinayaan dhimashadii ka dhalatay fatahaadii isla markaasina ay aad ugu xun yihiin dhibaatadii soo gaartay shacabka Soomaaliyeed hase ahaatee ay garabkooda taagan yihiin sidoo kale waxay wasaaradda sheegtay inay ka qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka barakacayaasha ay ku dhibaataysan magaalooyinka ay ka mid tahay degmada beledweyne ee xarunka gobolka Hiiraan oo ah meesha ugu daran isla markaasina meydad badan iminka lagu laayahay maalin kasta ama saacad kasta la soo gurayo meydad ay webiga soo tuureen Turkiga ayaa ka mid ah dalalka saaxiibka dowladda Soomaaliya wuxuuna ka taageeraa dhinacyada kala duwan oo ay ugu horeyso dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybaha bini'aadanimada gargaarka waxqabadka iyo isbitaalooyinka hase ahaatee Turkiga ayaa iminka noqonaya dowladii ugu horeysay oo soo gorb istaaga fatahaada webiga waxa kale oo Turkiga lagu xusuustaa gurmadkii uu dadka Soomaaliyeed oo uu fidiyay sanadkii 2011 xilligaas oo ay Soomaaliya ka jirtay abaar xoogan oo saameysay dadka iyo dunyada oo aad Soomaali badan ugu lacdeen iyo xoolihii ay halkaas ku haysteen hadalka hadda ka soo yeeray dowladda Turkiga ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xaaladii ugu dambeysay ee fatahaada ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo qaar ka tirsan Koonfur Galbeed hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa ballan qaaday wax waliba oo dadkaas lagu gargaari doona sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo qaadi doonaan halka naga daawanaysaan waa Calansida Media fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh